ay galabta labada kooxood ay ku wada ciyaarayaan garoonka injineer Riiso halkaasi oo ah ciyaarta labaad ee dhacayso maadaama tartankan uu shalay furmay xulka koonfur galbeed ayaa markaasi sanadkan diyaar garow xoogan oo ka muuqda halka sidoo kale Jubbaland ay rabto inay daafacato koobka tartanka maamul goboleedka iyo sidoo kale gobolka Banaadir xulka Jubbaland line-up-kooda waxaa markaas ka mid ah ciyaartooyga goolka haya ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Dheere Geele sidoo kale waxa uu ciyaaraya Muscab ayaa sanadkan qayb ka ah weeraryahankii caanka ee degmada Waabari Cusmaan ayaa markaasi lagu soo bilaabay line-up-ka xulka koonfur galbeed xidigii degmada Waabari ku soo hanan qaaday ayaa kubadda markaan baasi doona Cusmaan Aadam Cusmaan ayaa ciyaaryahan markaasi weerarka aad ugu wanaagsan Browniga markaan waa la baastay gadaal ayaa loo furtay koonfur galbeed ayaa baasatay weerar Jubbaland markaan waa u dhiyay Muuse laakiin ugu dambeyntii waa laga diiday weerar markaa halis ciyaaryahan Fodogo ma aysan dhicin xidiga lambarka 13aad ee Mahad Nuur ayaa kubadda soo qaaday Mahad Nuur Kabiru ayaa ninka lagu magacaabo Mahad Nuur Kabiru ayaa kubadda soo qaaday hase yeeshee golayaha kooxda Jubbaland ayaa Browniga markaan soo dhisi doona Axmed wuxuu ka ciyaaraya qaybta difaaca waxaana uu ahaa sanadkii hore mid ciyaarayay qaybta dhexe Muuse waa kan xabadka ayuu saartay weli Muuse isaga wata Muuse maya waa ciyaartooy la qaaday kooxda Rasan horyaalka Serbida fasal ciyaareedka 2018-2019 waa agaag markaan ciyaartooyda kooxda koonfur galbeed Kabiru ayaa kubadda markaan soo ciyaaray koonfur galbeed markaan weerar halis ugu dambeyntii waa la saaray mar kale weerar soo kana ciyaaryahanka marka toddobaad ee kooxda koonfur oo waa la soo dhigay laakiin ugu dambeyntii jabhadii Jubbaland waa la kala diray waxaana laga dhaliyay gool qurux badan ciyaaryahanka marka 17aad ee xulka koonfur galbeed ciyaaryahanka hore ugu soo ciyaaray degmada Waabari ayaana ka dhaliyay gool cawaaqib leh waxaana ciyaartu ka dhigay Cusmaan gool yeber iyadoo goolkaas qaladkeeda uu lahaa difaaca kooxda Jubbaland waxaana ciyaartay noqotay mid gool yeber ay hoggaan ku qabteen xulka lagu magacaabo koonfur galbeed koonfur cusub ayaana galabta markaasi muuqanaysa inay ciyaarayso maadaama Jubbaland laga dhaxsaday oo laga dhaliyay gool daqiiqadii 22aad ciyaartuna waa gool yeber ciyaaryahan Cusmaan ayaa ka dhaliyay gool markaasi aad u qurux badan waayahay inkastoo koonfur galbeed ay dabaaldegayso haddana weerarka labada kooxood aad ayuu u wanaagsan yahay difaaca Jubbaland ayaana cadaadis lagu soo markaan waa kan kabtan Muuse Cabdifitaax ma aysan dhicin ciyaartooyga lambarka toddobaad ee kooxda Jubbaland agaag dhexda ay taala mar kale koonfur galbeed ciyaaryahanka lixda u wata Mahad markaan weerar waa kana Kabiru ciyaaryahanka lambarka 20aad ee kooxda koonfur galbeed ayaa kubadda markaan sameeyay shoot of targeta lambarka 13aad ee koonfur galbeed ayaa kubadda markaan wata weerar markaan waa kan Cusmaan Bashiir kubadda suqur xun ayuu soo dhigay markaan weerar koonfur galbeed markaan weerar Umar Aadam Cali ayaana kubadda markaasi banaanka marsiiyay haddii uu isagana si taabala halisteeda ay badnaaleed laba difaac ayuu ninkan kubadda ka dhaxariifay kadibna ciyaaryahanka lambarka 20aad ayuu dhiibay kubadda dhammaan ciyaartooyda koonfur galbeed waa ay soo wada doonteen waa kan lambarka 3aad waa la soo qaaday banaanka ma aysan dhicin waa tahay markaan ciyaartooyda kooxda koonfur ciyaaryahanka lambarka 3aad kubadda uu soo qaaday laakiin ugu dambeyntii banaanka kubadda waa uu saaray mar kale koonfur galbeed weerar ayaa ku socda Jubbaland waa tan meel fiican ay la soo gal ugu dambeyntii dishada banaanka garoonka markasta ayaa la soo buux dhaafiyay xitaa gurubyada aad ayaa loo daawadaa iska daa marka uu gaaro knock-out-ka heerka gurubyada ayaa mid aad iyo aad u camiran gantaal xoogan ayaa lagu riday difaaca kooxda Jubbaland sidaa markaasi waqtiga uu yahay waayahay kabtan Cusmaan Bashiir ayaa Browniga markaan wata laakiin difaaca kooxda Jubbaland ayaa kubadda markaasi isku dhigay banaanka ayana kubadda u baxday daqiiqadii 47aad ayay socotaa qaybtii koowaad ayaa gabagabo ku dhow garsooraha ayaana ku dhawaaqay seeriga inay soo ilaatay qaybtii koowaad oo ahayd qayb xiiso badan xamaasad leh si qurxoonna labada xul koonfur galbeed iyo sidoo kale Jubbaland ay isku weerareen waxaana la filayaa in markaasi qaybta labaad labada xulba ay soo bandhigaan ciyaar aad u qurux badan waxaana ay ku soo dhamaatay qaybtii koowaad gool yeber ay ku hogaaminaysay kooxda lagu magacaabo waa kooxda markaasi lagu magacaabo koonfur galbeed waagaag qaybta labaad ayaa daawada isku soo laabtay ciyaarta u dhaxeysa xulalka Jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed iyadoo gool yeber ay ku hogaaminayso koonfur galbeed goolkaas oo dhaliyay daqiiqadii 22aad laga dhaliyay xulka Jubbaland markaana ciyaartooyda kooxda koonfur galbeed ayaa Browniga markaan weerar ku jiraan laakiin Jubbaland waxay la soo ciyaareen qaybta garabka weerarka waa la soo dhigay markaan weerar waa kan Muuse ciyaartooyga Jubbaland Muuse
birta ayay ku dhacday kubadda uu markaas samaystay ciyaaryahanka lambarka 9aad ee Jubbaland ciyaaryahanka lagu magacaabo Muuse waa kubad markaas halis badan waa la soo qaaday markaan halis laakiin banaanka haya banaanka daahir geele taageerayaal fara badan ayaa halkan ku sugan oo aad iyo aad markaas u xamaasadeysan Jubbaland ayaana lagu hogaaminayaa gool markii Koonfur Galbeed ay gaareen shabaqa daqiiqadii 21aad markaana ciyaartooyda kooxda marka halis Jubbaland halis ma aysan dhicin gadaal ayay kubadda u soo fureen ciyaartooyda kooxda Jubbaland laakiin waxay ahayd fursad dhameystiran u baahan Ahmed Abdi ayaa kubadda markan soo xambaaray Jubbaland markan weerar ayay ku jirtaa laakiin gool ayaa kooxda Koonfur Galbeed Jubbaland waxa uu la soo ciyaaray Ahmed si qurxoon daqiiqadii 61aad ay socotay ciyaartuna waa gool eber Jubbaland ayaa markan weerar iskale Jubbaland free head ayuu sameeyay ciyaartooyga weerarka kooxda Jubbaland ciyaaryahanka lambarka 22aad ee halista badan Maxamuud Xasan Jaamac Maxamuud kubad uu markaas madaxeeyay gool ayaa kooxda Koonfur Galbeed ayaa markaas ku raaxaystay oo qabtay ayaa muuqanaysa inay markaas sii wadanayso qaab ciyaareedkeeda halka Jubbaland ay baadgoob ugu jirto inay ciyaarsato goolka lagu leeyahay inay soo barbareyso waa la soo qaaday markan halis laakiin Koonfur Galbeed kubadda way soo saareen marka la waa laga diiday inkastoo goolkaas uu ku jiray foul haddana garsooraha ayaa dhigay goal kick oo Koonfur Galbeed ah goal kick ayuu dhigay ciyaartooyda taageerayaasha Jubbaland way dabaaldegeen oo waxay u qaateen goolkaas inuu ahaa mid ansax ah odayaashii ayaa galabta dabaaldegaya gabdhihii wiilashii ayaa sidoo kale u sacabtumaya Jubbaland waxaana ay leeyihiin Jubbaland oo hageesidii qaaday koobkii ugu dambeeyay ee tartanka maamul goboleedyada mar kale ay qaadi doonaan oo guul ay galabta hana doonaan ay leeyihiin waa hagaag ciyaartooyga lambarka 9aad ayaa si xoog leh u dhaliyay goolka laakiin waxa uu ahaa kubad markaas garsoorka uusan u arkin mid sharci ah 7 daqiiqo ayaa maraysa markan taageerayaasha Jubbaland wali fadhiga ayay ka kaceen oo wali waa Muuse markan uu soo galay Muuse weeraryahanka halista badan ee lugta bidix ku ciyaaray kooxda Jubbaland ayaa la soo galay dishota iyadoo dhanka kooxda Koonfur Galbeed ay kubadda ku socotaa Jubbaland ayaa iskale waana mid halis ah oo gool loo bedeli karo waa la soo qaaday markan halis madaxa oo bariiska ma aysan dhicin waa kan lambarka 12 Cabdirasaaq isaga kubadda wata ugu dambeyntii Koonfur Galbeed ayaa markaasi halis ku sameysay dishota dhexdeeda gool kulaad ayayna qalad ku galeen xidiga lambarka 7aad ee Cabdifataax Siyaad Shire ayaa helaya bal fiir halkan oo ka hortagi doona Ibrahim waji ka waji gool kulaad markan ma soo celi doona goolka lagu leeyahay wiilkan mase waa u qasaari doona yaa labadooda geesi noqon doona Cabdifataax Siyaad Shire geesiina waa Koonfur Galbeed geesiga ciyaartana waa Ibrahim Axmed Xuseen oo galabta yiri mana dhaafo taageerayaasha Koonfur Galbeed waa ay dabaaldegayaan waa ay durbeeninayaan waana ay faraxsan yihiin Ibrahim ayaa u muuqanaya ciyaaryahan badbaadiyay fursadii ugu fiicneed ee ciyaarta waa taa gacanta bidix uu ku saaray fursadii Cabdifataax Siyaad Shire weeraryahanka kooxda Jubbaland lambarka 7aad uu ka beeniyay ayaana ahayd dhacdadii markaasi ugu saameynta badneed ee goolayahan uu ka sameeyay ciyaarta oo soo tuuray ciyaaryahanka lambarka 7aad ee Jubbaland oo hoos uu ka dhigay ayuuna ka siiyay oo yiri ima dhaafto sida darteed sharafta iyo sumcadda mar kale iyo fursad ay sameynayaan ciyaaryahanada kooxda Jubbaland waa la soo qaaday markan Maxamuud Jaamac oo halis markan ugu dambeyntii Koonfur Galbeed banaanka Koonfur Galbeed Ibrahim Axmed Xuseen Koonfur Galbeed golofka dahabka ay u suri doonaan gacmaha haddii galabta ciyaarta natiijo noocan ay ku dhamaato halis markan Jubbaland ayaa halis ku jirta waa kan kabtan Faad banaanka ciyaaryahanka lagu magacaabo Faad Maxamed ayaa kubadda markan laga saaray ciyaartooyga lambarka 10aad ee Jubbaland waa kan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Jubbaland si qurxoon ayuu la soo ciyaaray Cabdirasaaq mar kale waa kan ciyaaryahan lambarka 13aad ee Jubbaland Maxamed waa laga soo qaaday markan weeraryahanka Koonfur Galbeed lambarka 19aad si qurxoon mar kale Koonfur Galbeed weerar kale laakiin ugu dambeyntii waa laga diiday difaaca kooxda Jubbaland ayaa yiri gool kale ma dhaafo waa hagaag labada kooxood ee Galmudug iyo Koonfur gool oo maysan noqon oo waxay noqotay koorno waxayna ahayd kubad markaasi
shabaqa dhinaca kale ka dulmartay oo labada xul midkood ay guusha raacdo ama barbara ay ku kala tagaan isla mid ah sidii shalay ay ku kala tageen banaadir iyo sidoo kale galmudug laakiin tartankan waa hagaag jubbaland markaan weerar ayaa markaan saaran jubbaland koonfur galbeed waa hagaag ma aysan dhicin calaamad digniinta ayaa la siiyey ciyaaryahankan kooxda koonfur galbeed oo ciyaaraya isaga ayaana leeyahay garsooraha ayuu isku dayay inuu markaasi go'aankiisa wax ka bedelo uu qayaano ama waxa uu sameeyey inuu markaasi jalin sameeyo lambarkii saddexaad mahad haaruun maxamed ayaa la siiyey calaamad digniinta ah xul aan dab yar shidaynin sidoo kale jubbaland iyo koonfur galbeed waa la soo korosay markaan laakiin haddii muse ma aysan dhicin golayaha kooxda koonfur galbeed ayaa galabta noqonaya man of the matchka ciyaarta wacdaraha ciyaaryahanka u dhigaya ciyaarta isaga ayaa noqon doona waxaana markaasi uu sameeyey fursad aad u qaali ah isagoo ka badbaadiyey ciyaartooyga markaasi weerarka kooxda jubbaland ugu dambayntiina uu ka qabtay ciyaaryahankan waana laga badbaadiyey fursaddaas fuaad ayaa kubadda soo dhigay difaacyada koonfur galbeed ayaana wejiga dhigeen muuse ayaa taabtay lambarkii 18aad ee xulka jubbaland ayaana markaasi helay fursad qurux badan axmed maxamed yuusuf waana uu khasaariyey garsooraha ayaa markaasi ku dhigan inuu seeriga uu ka dhawaajiyo maadaama wakhtigii ciyaarta uu gabagabo ku dhow yahay jubbaland ayaa ku bilaabanaysa natiijo markaasi aan qurxooneen koonfur galbeed ayaa ku bilaabanaysa natiijo way dhamaatay ciyaartii waxaana guul gaartay xulka koonfur galbeed waxaana guushaasi hogaaminaya golayaha kooxda koonfur galbeed ibraahim maxamed oo ah ciyaaryahan markaasi badbaadiyey goolkulaadkii ciyaarta koonfur galbeed ayaana sharbaha dhul ku dhigtay xulka jubbaland furitaanka tartanka maamul goboleedyada ciyaarta koowaad ee gruubkooda puntland ama jubbaland ama koonfur galbeed labadooda ama saddexdooda laba ayaa soo gudbi doonta mid ayaana gruubka ku hari doonta